ايش احكوا لهاي Soomaali ma Arab baa mise Afrikaan والله waxay taa Allah aclam laakiin Soomaalidu waxay dhahan sinjigeedu waa Arab markaad maxay mistaa markaad ani waxaan aaminsanahay Soomaali dhalad inay Soomaali maya Arab ma tabta Afrikaan markaad aniga Afrikaana ina fanta mistaa yaa hada ma sada Afrikaan min waay maxaa ku dhahday hawaay waa Arab baa dheeraa maxaa ku dhahday waxaa la dhihi karaa Soomaalida oday Carbeed iyo waxa iska dhalay gabadh Afrikaan aa ujeedaade si Arab ku noqonay iyada hordhaca daawateen waa qayb kale iyo barnaamijkeena galka dadweynaha iyo saasheena maanta shacabka Muqdisho u diinay su'aal fanni ahayd si kale marka loo fiirina ahayd aqoon guud iyo wax kororsi shacabka uu sameeyay saasheena maantana waxay ahayd Soomaali isirkeedu ma Arab baa mise Afrikaan jawaab kala duwan ka bixin shacabka Muqdisho aan daawano jawaabaha shacabka Muqdisho saasheena marka hore like share iyo comment inta wasaara page-keena YouTube-keena galka dadweynaha aan daawano shacabka Muqdisho jawaab ka bixiyeen saasheena u diinay maanta daawasho wacan ma karo ku soo dhawow kanalkeena galka dadweynaha oo magacaaga noogu raacsiinaya waan ku dhowahay galka dadweynaha magacayga waxa la Umar Nuur waa mahadsantihiin barnaamijka awdiin boqolkiiba boqol Umar Saaba maanta wadnaa diyaar ma tahay diyaar baan u ahay waxaad weydiisana ka jawaab saasha ku leedahay Soomaali ma Arab baa mise Afrikaan kullay Soomaalidu waa dad Araba sababtay waxaan ka tirsanahay jamaacadda Arabta ayaan ka tirsanahay anaga marka saas awgeed Arab baan ka dirkii dulka oo madow ma dhigi karaa Soomaali Afrikaan waxaa la dhihi karaa Soomaalida oday Carbeed iyo waxa iska dhalay gabadh Afrikaan markaad waxa la aragay odaygeena Carabi hooyada la Afrikaan waa leedahay ha sidaas way wadankan ardul Xabasha ayaa hooyadanada ka timid aabahanagana wuxuu ka soo jeedaa dhulkan Carbeed oo ka imaaday saas awgeed marka waxaan ku nahay Arab aan u nahay asalkanaga marka dhulka aan deganahay hadaan markaas aanan Afrikaan la ku dhayn anaga Arab baan هذا ما استبرد ما قرر كسر وقت دوينها هذا ما عينه بلاوي magacayga waxa waaye Nicmo Ismaan Maxamed نعم سلك ودينا دير متاعي aan diyaar waay ساشو حكوا لها هاي Soomaali ma Arab baa mise Afrikaan Soomaalidu wallahi horta dad madow inaan nahay waa isku jeednaa marka Arabtan waa laga cadcadiin Afrikaanimada iska qaadanaa noo fiican marka Arab minna leedahay Arab ma lihin هذا ما صدق كسر وو إن galka dadweynaha هذا ما عينه بلاوي warayda magacayga bilaaw Maxamed Abdirahmaan Maxamed محمد سلك ودينا دير متاعي هادي هذا ساشو حكوا لها هاي Soomaali ma Arab baa mise Afrikaan su'aashan jawaabteeda isku dayo Soomaali asalkeed waa Arab maxaa ku dhahday ya maxaa ku dhahday Arab waa lahjada lahjada iyo hadalkood oo macnaha uu badan yahay luqadda Carabiga هذا ما صدق كسر وو marka hore galka dadweynaha هذا ma عينه بلاوي waa ku dhowahay magacayga waa Sakariya Xuseen Imaan iskriyo سلك ودينا دير متاعي si fiican ساشو حكوا لها هاي Soomaalidu ma Arab baa mise Afrikaan Soomaalidu waxa waay waa Arab baa dheeraa maxaa ku dhahday waxaa ku dhahaynaa markii aan fiirinay waqtiyo badan iyo hadalada badan dadka ay Soomaalida isla raaci jireen oo ahayd in Soomaaliya ay ka timid dad Carbeed taas ma aynan raacin laakiin had taas waxaa kale noo sii cadeynaysa anaga Carab nahnay manhajka dawladda oo hadda soo baxay buugaagta qaar oo dawladda ku qoran luqadda Soomaaliga waxaa ku jira wili still ereya oo Carabiga ku jira oo laakiin iyaga ay Soomaali ahaan u haystaan laakiin ereyadaas oo ah ereya Carabi ah taas aan cadeynaysa marka still inaa anaga Carabka imaan marka asal Soomaali iyo waxaan Arab waa leedahay anaga asal Carab aan leenahay هذا ما صدق ساعد كسر وو galka dadweynaha هذا ma عينه بلاوي ساعد magaceeda ku soo dhawaad Sakariya Yusuf Xasan iskriyo سلك ودينا دير متاعي ha diyaar waay ساشو حكوا لها هاي Soomaali ma Arab baa mise Afrikaan xagaa mise tahay Soomaali Arab ma Afrikaana Afrikaan Afrikaan ka mise tahay ha sababta ku dhadayna waa blue jeeda be Soomaali leetahay oo madow ay tahay ha ujeedaa be si Arab ku noqonay iyada Arab ma karo ku soo dhawow in galka dadweynaha هذا ma عينه بلاوي magacay Maxamed Ali maxaan hor dheeranahay say Xaaji Buuma Xaaji Buuma حاج مو سلك ودينا دير متاعي Buuma gada سلمى ودينا وان دير متاعي ah ساشو حكوا لها هاي Soomaali ma Arab baa mise Afrikaan siday sheegay horta labadaba way tahay ay Arab League way ku jirtaa ayaduna way ku jirtaa ay laakiin haddii la fiirsho anaga Arab aan madow anahay sifiican Arabta marka waa ururkaas waxaa jira wadamo badan oo waxaa jira Arabna Afrikaan ah sideena amal Masar waxaa lagu sheegay Arab inay tahay waana caddahay Liibiya ku jirto Tunisia waxaa ku jirta Morocco ku jirta Arab lagu sheegaa laakiin anaga Arab labadaba ku jirnaa AU ku jirnaa Arab League ku jirnaa هذا ما صدق aye ma karo ku soo dhawow galka dadweynaha هذا ma عينه بلاوي magacayga waa Mustafa Cabdimaad isagoo soo ودينا دير متاعي diyaar waa ساشو حكوا لها Soomaali ma Arab baa mise Afrikaan Soomaali xagaa mise tahay Afrikaan waay Afrikaan waay maxaa ku doortay waa madowna sama هذا ما صدق ما karo ku soo dhawow galka dadweynaha هذا ma عينه بلاوي
magacaygu waa maxamed cabdimaad ibraahim maxamed su'aalka weydiinaa deer matahay haa su-aasha waxaa ku leedahay soomaali ma carab baa mise afrikaan soomaaliya ani ahaan waa carab maxaa ku leedahay yaa soomaali afrika ma degnin afrika waa degannahay laakiin cadcadaanka u badan waasan tahay marka hore kusoo dhawow galka dadweynaha adoo magacaaga noogu bilaabay waa mahadsantay magacayga waa anas carab abdi anas oo su'aalan ku weydiinaa deer matahay haa su-aasha waxaa ku leedahay soomaalidu ma carab baa mise afrikaan afrikaamin waay maxaa ku dhahday sababta annagu soomaali aan nahay waa madowna macnaha haa dabcan marka hore kusoo dhawow kanalkeena galka dadweynaha adoo magacaaga noogu bilaabay anigu magacaygu waa Naciim Sheekh Axmed Maxamed sabab baan ku weydiinaa deer matahay haddaa aqaano su-aasha waxaa ku leedahay soomaali ma carab baa mise afrikaan wallaahi waxay tahay allahu aclam laakiin soomaalidu waxay dhahaan sinjigeedu waa carab markaad maxaa aaminsataa markaa anigu waxaan aaminsanahay soomaali dhalad inaa soomaalaa carab ma tabta afrikaan taa markaa aniga Ha, maxaa afrikaana ah ina fanta